adiga Dimaashi masxan maxay naga dhaxay anoo waliba dunida kugu jecel dibaato male waa iga furantahay iska baxad bani ma ay furtay oo alle waa ku furay maxaa sababay muxuu ahaa ani mahzab ama ba anagana ku xiriir ka dhaxay ama anagana dad saaxiiba ama ahana ku walaalo shaqo ka dhaxayso assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh saaxiib soo dhawaada maanta yaani wada la tanweyn walaalo qaaliya xasan sooya inta bil xasan sooya soo dhawaada waa ku salaama adiga asxaabtaadana waa salaama waa sharafi karaamo aadiyo sidoo kale maanta wada joognaa aniga asxaabto sharafi karaamo nagu wayna ma sha Allah anagana waxa waaye meel walba Soomaalida ka joogan aan horta ixtiraam u haya sababtu waxay tahay aadi yani idirigeliyaan ma arkin wali dad negative oo media soo weeraro wax iga sheegay wali ma arkin maxaa waada ani waxa soo gudbiyay mostly wax iska positive wax dad infect ku yaalaan qorsheeya marka saaxiibada waa salaamaya waxaana ka codsanayaa in halkan baasha ka wadaan meel qurux badan ka dhigaan waa maqlaysiin waa ninka odayga waa amarkiisa waa maqlaysiin meel qurxan oo dadka u qalanta ka dhiga insha Allah aad sooya maanta walaalka wax kale ma soo qaban waxaan weydiinaynaa dhowr su'aalood insha Allah waxaan rajaynayaa su'aalaha Xasan inaad nooga jawaabi doontid wixii ma aragtay adigu astraado waa xogaaya way kugu fogaanayaan waa hadaysa waa ka dhibacdaadaysa ma ka gaabsaday haye waa ka dhibacday Soomaaliya sa iga dhibcasho Soomaaliya waa ka seexdaan gas marka waxa kaliya taasaan sameeyay marka su'aalahan ku weydiinaya waa ku bilaabayna insha Allah diyaar waayo insha Allah anna waxaan rajaynaynaa ka jawaabo aad Xasan Sooya su'aasha ugu horeysa waxay leedahay noloshaada intee caqabadood oo kugu adkaa xasuusataa wallahi niyo horta yaraanto kaleete caqabado fara badan la iskala kulmaa oo ka mid tahay sometimes dhalinyarada ilmaha yar waxa ku dhacdo waalidkaaga kaleeto magaalo kala degaan oo Soomaali kamid ah xiliyada anaga dagaaladii ku soo aadnay fahantii wadana magaalo kale wax ka baranayso kale ama degmo aad wax ka barato waalidkana degmo kale ka degiin oo kale wallahi horta caqabadaas iska jireen xilliga iskuulkan dhiganeen oo kale caqabadaha aan la kulmo waxa kamid ahayd xiliyada imtixaanaadka finalka oo form 4 ka aan galay 208kii ahayd 2008 waxa xasuustaa waxa jira dagaal adag aan Muqdisho ka jiray xilli adag aan imtixaanku moogtaa markuu final exam uu yahay waliba secondary ana qofka ma baaqan karo wax baa la baaqan karo marka waxaan wax ku baranay xaalad adag waxa inta soo rafaadaysay waxa xasuustaa saddex maadood inaan meel ku galnay saddex kala degmo kale loo raray dagaal jira awgeed ma fahantaa maalinba meel ku balaminayay social media marka aan imaadno caqabadadeedu waxa ugu badan horta qof bini aadan waliga arkin waxba aadan ka galabsanin inuu iska kaacaynayo kale inuu iska kaaceedeynayo kale qof aadan aqoonin waxa ka haleysay isagoo fiyus raadinayo inuu ku leeyahay dambi ku saaro oo sameeyo kale marka waa iska badin caqabadaha taliye wax saaran aad mahadsan tahay su'aashaas aad uga jawaabtay Xasan su'aasha ku xigta ee labaad waxay ku leedahay social media inta aad ku soo biirinay hore ama inta hore aad social media waxa iska duubinay aan wax kale ninka faamuuska caanka aan noqonin shaqadaada maxay ahayd okay laba nooc shaqadeedu way ahayd sax horta weyn waxa ugu shaqeynay wixii aan takhasus aan bartay oo degree-gayga ahaa oo waxa ku shaqeynay IT ama computer science waxa ahaa nin labada sideed subaxnimada ama labada subaxnimo qof shaqo taga ee xafiis taga ee ka imaada qalbiyo kale sidaas la midana xilliyada kamidana waxaan ahaa bare macallin ahaa oo ardayda oo jaamacadaha semester 1 iyo semester 2 ay ku adkaato maadooyinka IT-da sida tusaale ahaan study skills ko kaleete HTML ko kaleete network advancing ko kaleete basic computer ka hardware ko kale software iyo waxyaabahaas aan bari jiray sax inta marka laga yimaadana waxa ahaa gelinki dambo 12 saac ka dambe ilaa habeenkii 6 saacna nin aflaamta coday aad oo aflaanta wax kale marka social media markii la dhaho waxa ka soo galay aflaam codeen ka soo film daabina ka soo shaqeeyay dhowr iyo 10 sano صح كواكا نادي هذا ما سنت حسن سؤال صدق هذا هو يدينا حواية واحد متشرى أدوك أو نعبته ومركز أرتتني واحد يا نيو واحد نعباي يا disgusting كه يوحد نعباي خوف بني آدم اللي بهدله كلام جعلاني وكذا أنت
maanta daa ku arka nin walaalkii aad tahay oo iska ka wanaag naga dhaxeeyo laakiin ani nafteeda muhiim maaha ani nafteeda kaliya wax ma ku qiimeeyo haddaa arka adoo qof kale oo maskiina oo bahdilaya ama like ku dhaqmaayo like ana camal ama isla qabweynin ama waxyaabo macna bani aadamnimada aan ku habooneen qof disgusting qof yasitaan camal haddaa kugu arko waa iga ka dhamaatani because hadda maanta xasooy ahaan aan igu qadarinaysid bari adasaan ahaa lahay waa igu sameeyay leed macna aad iyo aad been ma so baadilaada qofka bani aadamka loo geysto adduunku nacbaan okay waa maqlaysiin ninka odayga su'aasha afraad waxa ku leedahay maalin lagu waxa jira ayaama intii ayaa maalmahan waxaa jira social media wax la isla dhex marayo dadku ay wax kala yiraahdo in badan ay soo qaateen aad wax kala yiraahdo dadku ay xiiseynayaan si fiican adiga iyo dumaashi masxab maxay naga dhaxayaan دمشق يدينا يجوج هذه محزب هذه محزب هذه مسحب هي ما أعرف هذه محزب قلت أنا محزب في تذكر أكو سيد حضر أكاسد حقلا تذكر واحد كسوق هذا الفيديو أده سوا واقف رعوة في حالي يقول قلت أنا محزب وحنا نقد حيو ونقد حيان صح oo taa waa arin nolol media ka gaarka ee waa wixii naga dhaxeeyba ama ba annagana ku xiriir ka dhaxeey ama annagana dad saaxiiba ama ahaan ku walaalo shaqo ka dhaxeyso taa waa out of media waa waa private life waa mugtahay ma gali karno mid kale xigto waxa waaye in arinka ah video soo lad kaas waa muhiimada ma waa ugu dhali aad been waa kaas tan ah videogaas media wareegay oo alle waa ku furay maxaa sababay muxuu ahaa dadku maxay u hadal hayaan Soomaa horta arinkan ciyaal TikTok horta fooda kici waxay sameeyeen film short oo ahay oo anaga aan jileynay waxaana ku mataleynay nin iyo xaaskiisa oo gabadho isticmaasho media YouTuber tahay laakiin ninka aan war u haynin prankigan la sameeynayo kaamirada meel isugu qarxay lagu qarinayo wixii laga sameeynayo laga xanaajinayo dan lagu dhaay baranki waxaan ka hadlaynay dadka reality isu qaba in noloshooda aysan baranka gelin sax ma fahanti wada dhibaato ma qiiman kartaa aan tusaale uga dhigaynay oo aynam fiicnaan ban live kaaga privacy inaad media keento sax been ma in short film kaas ay soo qaateen waxay dhaheen xasasooya oo furay oo maxzab dadkuna ani xamdi mostly waxba isla duubnay waa isla wada joognaa dad shaqo wadaaga waxay doontaba han qatay kulli laba qof waxa aheen like yani isu riixan ayaga dhahan xiriir baa ka dhaxeeyay dhahan moogtahay saas awgeed videogan kista ciyaal TikTok ka faa'iideystay intaas ka faa'iideystay way jareen waxay dhaheen xasankii oo maxzab maanta furay markaas saas loo wareejiyay video aad iyo videogaas aan qudhayay soo gaaray laakiin filimka xitaa dee filimka ma aragto filimka marka daawataad ku dhaxar kartaa filim ahaan marka u daawo laakiin marka TikTok gobolka kuna umaleynay aad iyo marka ni horta ka waxaan leeyahay dadku wuxuu ahaa iyo asxaabtaadaba short film oo ahaa wuxuu ahaa film muuqaal yar oo wacyi gelina dadka social media live kooda saxda ah keeno inay ka laabtaan waxaas aysan sameeynin in qurux badneen noloshaada inaad dadka la wadaagto waana sababta aan mar walba markii nolosheeda wax leeyahay weydiyo aan uga gaabsado oo aanan jeclayn in u qeexo صح ما بندي marka taa waa taas aad iyo aad ma santahay videogaas sidaas soo ahaa dhamaantiin waa ma santiin su'aasha ku weydiinaya lixaad waxa weeye shanaad waxa weeye xasan noloshaada ma jira qof ku qaali aha oo aad leedahay qofkaas arlayda waxa kale la yiraahdo kugu qaali aha inta qof kugu qaali yahay oo waxa kale la yiraahdo hadda aan waxba inaga dhaxay ma jira ma jira لكن قفل المدهي لكن موجرة وكذا معناه يا موجرة دي اوكي هذا ما صنتين سؤال شيء قدام بيسا هل ميدا قدام بيسا وحواي ما جرى قف noloshaada dib ku hayo adii lahayd waxa kale alle maanta qofkaas dib ku ah oo madax ay galaa madax ka galay oo dhibay foodiiste amala hal qof araba inaad oo foodo iga dhaaf haye madaxa ay gashay dhaaf caadi ugu qaxaysid amal dareen waa amal dareen hadii la iga cishi karo dadka ifiirsan oo sheegay hadii iga cishi karaan ha iga cishtaan aad iyo waa amal dareen waxa laga aad iyo madaxa iga gash aad iyo ma qalasaa su'aasha toddobaad ugu dambaysa xagee jeceshay inaad ku noolaato dadka mustali waxay dhaayaan mugtahay
مكة مدينة أيه. we know مش وميل أنا كنا واجب نحتاج وين واجب عني صوبوق واجبات كسوقدنا لكن مركا هذا حاجات عشان إنه كنا ولاتو لا أكود نولش هذا معناها استعمالات على له دي قف المستقبل إيه وحوليه هاي وحكي اللي يراهدو لا نولش نبتة وليه سواء مركا أنت هلقت هو استعمالات إسلام على هالكاس نولش هذا أنا هدي أفريقيا دا إيفرتين كويسان كارو like business وكلا كويستو أما وادين دليرا إسلي كار ماشي أرتوا تعبتي أفريقيا ميل كان نلول في عن مجرته بدونك لكن هدي لها يو حدا نلول عبورة هدواكن على سمينا شغل قبنا كندا كندا نض مريكا هاي أديات برنامج كان أنت سكويك حسن أديات بدون ما حسنت هاي سيدي بشي welcome my brother وحكي اللي يراهدو أصحابته وصول ويسي وأنا حاجة محد علنا يا إن شاء الله مركب جوه رئيسنا نقول ما يسمى مركب جود بيسنا نقول ما يسمى إن شاء الله أديات بدون ما سنت وأنا حاجة محد علنا وعليكم السلام من أصحابتي أصحابتنا وحنا لنا هاي سيداسيو نبت قليل